gabadhina walaasheena waa iska jiiftaa waa xaaskayga sadeed cunug ay dhashay cunug hadda ma foorarsan karto cunug dhulku kama soo qaadi karto dushku ma xiran karto cunuga waxba ma karsan karto gacanteeda saa madax kuma taaban karto ajala xanuunkan awgeeda hadda waxaan u baahannahay walaalaheena inaana garab istaagaana kii soo baxshay iyo kii sii sheegareeyey iyo kii laagta saaray qof walba ilaahay ajarkiisa ma dayacayo ilaahay ajarka qof walba oo barnaamijkan uu ka geystay ma dayacayo waa qoys dabaalaysan waa qoys baahan waa qoys daruufu hayso waa qoys dad caruura iyo hooyadood iyo aabahood ay wada joogaan marka noloshooda iyo quruxdooda qof walba oo muslima ayay waajib ku tahay marka waxaan kaa codsanayaa inaadan barnaamijkan yaraysan hal walaaloo muxsina oo ilaahay baashan u dhiibay ayaa bixi kara بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيو أدي أتبعيني سلامي ناميل كستود أدونك جوكتان مانتا كدوان برامشديني هوري مانتا وحا هورتينا فرديا وحسنو آدن حسن إيني ولالكي طبعا وحينو هوري مادين نوسو هالفريستين وجوغو دا قاليغا وبلشدو هوركينين waa baahi iyo dhib haysta ninkan garabkayga midig fadhiya ee xasanow aadan xasan lagu magacaabo ayaa xaaskiisa xanuunsan tahay muddo dhowr sano ah xaaskiisa xanuun bay meel la jiiftaa ilmo dhowra ilaa 8 caruura ayay dhashay qof walba ee muuqaalkan daawanaya marka koowaad waxaan ka codsanayaa in muuqaalka la sheegareeyo laagna la saaro si walaalaha muxsiniinta meel kasta ay adduunka joogaan uu u gaaro dabcan khayrka qaybtiisa waxaa qayb ka ah inaad sheegaraysid waxa laga yaabaa jeebkaaga inaysan wax ku jirin ama walaalka aada waxba dhaamin laakiin waxaa khayr badan aad ku samaysay markii aad laag saartid ood sii sheegaraysid walaalaha barnaamijkan qayb ka qaadan kara ee walaasheen isbitaalkeeda bixi kara haddaad gaarsiisid idan kale waxaan rajaynayaa inaad wax bixisay bay la mid tahay ilaahay ajarkaaga kaama dayacayo marka ha yaraysanin laagta iyo sheerta oo meel kasta gurubyada whatsappka facebooka meel walba ku sheegaray insha allahu tacaala walaalkii xasanow aadan soo dhawow walaasheen xanuunkeeda iyo meesha ku nooshihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku noolahay meel ceelwaaq la dhahay aan ku noolahay countiga mandheera aan ku noolahay walaasheen waa xaaskayga waxaa xanuun waxaa haaste 4 sano a xanuunsan tahay markii labadii garaba a wax ka soo baxeen waxay maxaa qanjaraha waayey waxay qaadeen haddana subuga galay hilibka xumaaday markii isbitaal dhinaca mandheera waan geynay waxay dhaheen dakhtariinta annaga waxa ma karayno ma awoodi karo cudurka ma aqaana ay dhaheen ma garanayno cilmi uma haysano saasay dhaheen ka bacdi waxaan soo qaaday xagan ka soo qaaday Nairobi aan keenay isbitaalka Jaabe aan keenay dakhtariintu waa fiiriyeen waxay dhaheen cudurkan waa karaynaa waan ka bixin karaa waa qalayna ay dhaheen ana waxaan joogay awal hore isdiyaan joogay kibarwaan joogay meel dukaanaan joogaa dukaankii dadkii iska leh waa gatay waa naga tageen haddii waxba ma hayo gabadhina walaasheena waa iska jiiftaa waa xaaskayga 8 cunug ay dhashay cunug hadda ma foorarsan karto cunug dhulku kama soo qaadi karto dushku ma xiran karto cunuga waxba ma karsan karto gacanteeda saa madax kuma taaban karto ajala xanuunkan awgeeda hadda waxaan u baahannahay walaalaheena inaana garab istaagaana muslimnimada inayna caawiyaan inama almu'minuuna ikhwa ilaahay baa saas dhahay muslimiinta waa wada walaala hadda waxaa loo baahan yahay
gabadhaas inaa lasoo caawiyo qanjarahana waa kuwaasi muuqaalka waa kaas sawirka muuqaalka waa dhacdada xanuunka gabadha haysta waa garabka soo maaha okay sawirka waa kaas oo xanuunka garabka aan sheegaye lacagtana waxay ku dhow tahay 1 milyan ay ku dhow tahay waa $10,000 wax madaxa ku haysa weeye $10,000 ay madaxa ku haysaa marka waxaase ugu muhiimsan ruuxa wax haysta iyo ruuxan wax haysanba gabadha walaasheen waxay nooga baahan tahay duco ruux kasta muslima carabkiisa ilaahay ha ugu baryo in walaasheen xanuunka haysta caafimaad ugu bedelo caafimaad degdegana ilaahay inuu siiyo ruux walba muslima waxaan ka codsanaynaa inuu usoo duceeyo gabadhaas insha allahu tacaala haddaad wax bixisay iyo haddaad wax bixinba gabadhaasi ducay nooga baahan tahay insha allahu tacaala walaashay ama walaalkayow sii sheegareeya muuqaalka oo meel badan gaarsiiya insha allahu tacaala wabillahi towfiiq